وقور ضمبه وحسكو دي دورينا سوق قابيو هذا الكا مركا كواد أروكو فرحسن وحنادي يا سو دوينيا سقالية طبعا كسياسية غويهن يا وين كوي سوتشرا halka dambe ka arkaysaan sawirradooda dhinacyadana iga taagan caawa munaasabada iska lahaa kuna soo biiriyay aqligooda cududooda waqtigooda xoolahooda xisbiga wadani aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaa la soo dhawaada xisbi aan la kala lahayn waa lagu soo kala horeeyay markaa ku soo dhawaada waxaan gaar u sii xusayaa sidii hore loo xusay xaawa oo ahaa xidiga caawa ka dhex muuqday 19 xubnood waxaan tacsi u dirayaa madaxda iyo madaxweynaha kililka shanaad iyo dhammaan shacbiga reer Soomaaliland waxaana ka tacsiyadeynayaa dadkii tirada badnaa ee shacbiga ahaa ee lagu laayay kililka shanaad iyo deegaanka Oromiya laba shacbi oo kala maarmin oo isku mid ah baynu nahay kililka iyo Soomaaliland waxaan Ilaahay uga baryayaa dadkaas in Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo dhammaanteena sabir iyo iimaan inaga siiyo waxaan mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa dhammaan shacbiga gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorame iyo degmada Dila oo shalay soo dhaweyn ma oran karo laakiin mucjiso ka muujiyay wixii halka ka dhacay waxa laga yaabaa aad ugu maana soo noqon anagu gobolka hadaan wadani nahay aad ugu maana soo noqon gobolka Muuse iyo Kulmiye aad bay ugu soo noqdeen waxaan u malaynayaa 20 jeer bay yimaadeen laakiin anagu ma 2 jeer baanu nimiyo wixii oo dhan waxa isku fuuqsaday 20 jeer soo dhaweyntii shalay waxay fariin adag waxay ahayd in shacbigu xaqiijiyo isbedel doonayo waxay xaqiijiyeen shacbigu inay doonayaan cid la bedelay inay Kulmiye tahay soo sidaas ma aha waxaan tacsi u dirayaa inankii dhalinyarada ahaa ee shalay xabadu ku dhacday ee geeriyooday Ilaahay ha u naxariisto isaga qoyskiisina sabir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo shalayto waxaan idhi mas'uuliyadda cid leh hal baaro waa la baaray yey ku cadaatay mas'uuliyadda degmada Dila iyo madax sarsare oo Kulmiye ah oo Hargeysa joogta wada bi ku cadaatay walaalayaal waxaan qirayaa gobolnimada shacbiga Soomaaliland bulsho kasta oo guuleysatay waxa taariikhdu sheegaysaa inay sabab u ahayd hogaamiye ku hogaamiya ama ku cadaalad waxaan u ballan qaadayaa shacbiga Soomaaliland inay ka bogsadaan daranyada Kulmiye haddii Ilaahay ka dhigo amiin isbedel ayaa inoo ballana isbedelkaasina wuxuu ku imanayaa farteen baan Kulmiye waa kala qaybinta bulshada waa inaynu diidnaa baan Kulmiye waa inaynu u codaynaa isbedelka guushu maanta waxay ku xidhan tahay gacmaheena
dhowr qodob oo yaryar ayaan rabaa inaan ka hadlo mid waa nolosha shacbiga Somaliland oo maanta mustawaha ay joogto ka warhaysaan waxa sababay hoos u dhaca iyo ciriiriga nolosha shacbiga sicir bararka waxa ka mas'uula kulmiye waxaan ku fashilmay inuu wax ka qabto wuxuu ciriiri geliyay sicir bararkii dhammaan nolosha shacbiga Somaliland taas waa sababtaan u ballan qaadnay inaanu ciidamada qaranka ee kala duwan loo kordhiyo mushaharada 250%. waxaanu u ballan qaadnay ciidanka inaanu aqallo u dhisno waxaanu u ballan qaadnay inaanu samayno xafiiskii xaqsiinta ee ciidanka waxaanu u ballan qaadnay in askariga geeriyooda ee shaqo ku geeriyooda inuu helo xuquuqdii uu ku lahaa qaranka waxaanu shaqaalaha dawladda u ballan qaadnay inaynu u samayno hawlgab si dhalinyaradu ay shaqo u hesho odayaashii 80 jirka ahaa shaqadii waa ka tegi laayeen sababtu waxa weeye wax xuquuq ma laha maanta laakiin waxaan u samayn doonaa si odayaashu dhalinyarada ugu baneeyaan shaqada hawlgab inay iyaguna qaataan iyagoo gurigooda jooga haddii la yiraahdo waxa ka warqabtaan in cuqaashu ay yihiin kuwa bulshada ugu dhibta badan ee nabadgelyada ka shaqeeya magaha ururiya ee khilaafaadka xalila mushahaaradoodu sida la sheegay waa 270,000 oo shilin oo Somaliland waxaan u ballan qaadnay oo xisbigu u ballan qaadaya cuqaasha in 100% loo kordhiyo mushaharada haddii la ka dhigo ballanqaad cusub baan ku daraynaa kuwii hore ballanqaadka cusub waxa weeye iskuulladeena maanta iskuullada babliga ah ama xukuumaddu maamusho macallimiintu way iskaga tagtay tayada waxbarashadu hoos bay u dhacday sababtu waxa weeye mushaharaadka oo hooseeya macallimiintu daryeel qabin waxaanu ku daraynaa liiskii hore in macallimiinta 100% loo kordhiyo mushaharada haddii la yiraahdo xisbiga wadani wuxuu siyaasad cad ka leeyahay horumarka dalka siyaasadda cad ee xisbiga uu leeyahay waxay ku qoran tahay barnaamijkiisa siyaasiga ah siyaasadda horumarku waxay ku salaysan tahay gobollo iyadoo la tixgelinayo baahida gobol kasta oo kala duwan gobolka awdal waxyaabaha aanu tixgelin doono 5 sano ee ugu horeeya xukuumadda wadani waxa ugu horeeya jidka isku xidhan Boorame iyo Looyaan insha Allah waxa ka mid noqon doona magaalada Boorame waa laga yaabaa 20 sano ka hor halkay joogtay iyo maanta shacbiga jooga aad bay u kala duwan yihiin waxay noqotay caasimad laakiin way biyalaadahay sidaas maaha Hargeysa laftigeeda biyala laakiin waxaanu ballan qaadaynaa in la ballaariyo iyadoo la tixgelinayo tirada dadka ku nool magaalada Boorame waxaa kaloo barnaamijka xisbiga ku cad in laga wada shaqaysiiyo dhammaan madaarada jamhuuriyadda Somaliland oo uu ku jiro madaarka Boorame gobolka awdal waa gobol qani ah wuxuu leeyahay bad wuxuu leeyahay beero wuxuu leeyahay macdantaasi shacbigu waxba kama faa'iido 2007 anigoo Addis Ababa jooga hodheelka Hilton la yiraahdo waxaan ku arkay inay yaroo Ingiriis ah oo maab sita oo yiri waxaan ka iibin London maabkaas sitaayo macdan ku jirta Boorame
ayaa la soo baxayaa buuli waxay la tahay macdanta ku duugan gobolkan oo aan shacbigana waxba looga faa'iidaysan waxaan dhiirigelin doonaa in macdanta laga soo saaro gobolka si shacbigana loogu faa'iideeyo haddii ilaahay ka dhigo waxaanu dhiirigelin doonaa maalgashiga muwaadiniinta gobolkani wuxuu ku fiican yahay beeraha badda wuu leeyahay wuxuu ku fiican yahay kalluumaysiga waa gobolka laga soo saaro xeebaheenna ee keliya ee milixda laga soo saaro marka waxaan dhiirigelin doonaa in beeraha kor loo qaado tacabka beeraha milixda iyo kalluumaysiga labadaba waa xarun aqooneed Boorame insha Allah waxaan ku dadaali doonaa waxbarashadeenu waxay u badatay in dugsi sare dhammaan ardayda Soomaaliland ay galaan waxaynu xoojin doonaa in laga sameeyo Boorame iyo gobollada kaleba maxad farsamada gacanta ah haddii Ilaahay yiraahdo arrinta ugu dambaysa waa saami qaybsiga qaranka awdalaad bay uga cabataa waxaa ka warqabtaa dhammaan siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee Somaliland waxay u tageen iyagoo isu dhan xukuumadda kulmiye waxay u gudbiyeen codsi waxaan filayaa codsigaas ilaa maanta inaan laga soo jawaabin codsigaasi waa codsigii qaylo badani ka timi waxaana ka dhashay suldaan wabar oo inaga maqan isna waa soo celin doonaa haddii alla ka dhigo insha allahu waxaan isku dayi doonaa muddada 5 sane ugu horeysa inaanu ballanqaadyada fulino ilaahay baan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo iyo inuu nagu asturo labadaba waxaan kaga tegayaa mahadnaqii baan ku soo celinayaa oo dadka gobolka dhammaantii waa u mahadnaqaynaa ballanna waynu ku kala tegaynaayo waxa weeye soo dhoweyntiinnii waxay ahayd mid cid walba ka yaabisay arrin baan idiin sheegayaa yaro qosol badan oo berigii 2010kii doorashadii 2010kii xusbiga u cid baan ka mid ahaa maalintii ugu dambaysay arrin kulmiye ka yaabisay baanu samaynay waa ay musharaxii xisbiga Faysal Cali Waraabe dayuurad baanu u kiraynay oo 6 gobol baanu soo marinay dabeedna Hargeysa oo dhan baa isu soo baxday nin abwaana baa wuxuu igu yidhi dadkan inoo soo dhaweynaya hadday insi yihiin waynu guulaysanaynaa hadday ji yihiinna waa la waayi doonaa buu yidhi waxaas leeyahay dadkii maalintii way soo baxay oo qudhi waxay fariin u ahayd kulmiyow ku dooni mayne naga tag marka codka una raacino